waan salaamo dhamaan saaxiibada ku xiran janaalkeena bidaayaad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago sheekooyinkii ugu dambeeyay arrimaha aflaamta balse intaan u gudagelin muuqaalkay waxaan ka codsanayaa inaad janaalka soo biirto muuqaalka haddii aad ka heshay ilaa inoo sarsi share gareey oo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal sheekooyinka ugu horeeyaan ku bilaabi doono waxa weeyaan aflaamta tiyaatarada saaran waxa ugu horeeya ma aan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Java filimkan Java waxa hogaamiyalkooda Afika Kaushal Rashmi Kamandana Akshay Khanna sidoo kale Ashoto Rana ayaa qayb ka ah sidoo kale Divya Dud gabadha lagu magacaabo filimkan wuxuu saaran yahay tiyaatarada marka la eego 3 maalin maalintii ugu horeeyay ama jumcadii la soo dhaafay ayaa tiyaatarada la saaray maalintii ugu horeeyay waxa uu keenay in ka badan 31 karoor maalintii labaad 37 karoor maalintii saddexaad wuxuu soo xareeyay in ka badan 48 karoor saaxiibayaal oo darta guud 116 karoor ayuu ka tilaabay marka la eego filimkan waa filim ee tiyaatarada saaran marka la eego filimkan natiijo ahaanba waqti hore ayaa la sii saadaalinay inuu filimkan noqon karo filim super hit ama blockbuster ah aflaamta kale tiyaatarada saaran dhankaasi koonfur hindi markaan eegno waxa laga soo qaadan karaa ama aan ka soo qaadan karnaa saaxiibayaal filimka Layla lagu magacaabo filimkan markaan eegno waxa hogaamiyalkooda ah ninka lagu magacaabo Fishwak Singh iyo sidoo kale Akansha Sharma sida shaac laga qaaday filimkan waqti hore wuxuu noqday filim deeg guul dareystay marka la eego 3 maalin ayuu tiyaatarada saaran yahay maalintiisii ugu horeeyay 1 karoor iyo bar ama 1.4 karoor ayuu keenay maalintiisii labaad 6 leg ayuu keenay maalintiisii saddexaadna wax ka yar 65 leg ayuu keenay saaxiibayaal wadarta guud 2.65 karoor ayuu keenay natiijo ahaan kooxda filimka askale waxay sii saadaaleen inuu yahay filim aad loogu qasaaray marka la eego filimkan Layla saaxiibayaal aflaamta kale ee tiyaatarada saaran waxa ka soo qaadan karnaa filim kale lagu magacaabo Brahman Anandam waxa filimkan hogaamiye ka ah ninka lagu magacaabo Soomaalida u yaqaan Leelefow sidoo kale filimkan 3 maalin ayuu tiyaatarada saaran yahay yaani jumcadii la soo dhaafay ayaa asigana tiyaatarada Hindi la saaray filimkan markaan eegnane maalintii ugu horeeyay waxa uu soo xareeyay in ka yar ama uu soo xareeyay in ka yar 34 leg xitaa 1 karoor ma dhaw maalintii labaad 37 leg maalintii saddexaad 48 leg wadarta guud 1.19 karoor ayuu keenay filimkan waa iska cadda inuu noqdo filim guul dareysan ama filim guul dareysan doona saaxiibayaal aflaamta kale waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Tanvel filimkan Tanvel 10 maalin ka badan ayuu tiyaatarada saaray marka la eego saaxiibayaal filimkan waa filim Telugu oo dhankaasi koonfur Hindiya marka la eegana wadarta guud 10 maalin uu soo xareeyay waa in ka badan 56 karoor filimkan waxa hogaamiyalkooda marka la eego Naga Chaitanya Sayabali sidoo kale Prakash Barwedi Divya Bilali iyo sidoo kale Romeo Ramesh ayaa qayb ka ah marka la eego saaxiibayaal filimkan aflaamta kale aan soo qaadan karno waxa qayb ka ah filimka lagu magacaabo Fidaya Murji Ajit Kumar ayaa hogaamiye ka marka la eego maalmaha uu tiyaatarada saaran yahay lacag uu soo xareeyay wadarta guud markii aan eegnane filimkan waxa la leeyahay waxa uu tiyaatarada saaran yahay in ka badan 11 maalin waxa uu soo xareeyay in ka badan 35 karoor saaxiibayaal dhanka kale wararka markaan eegno dhanka Bollywoodka ninkii Sunil Shetty waxa la leeyahay markan waa uu soo laabtay maadaama filimka Kesari Veer ama Kesari Veer Gosgos laga soo bandhigay muddo 3 maalin ka hor ninkii Sunil Shetty ah Gosgoskaas asiga inta ugu badan awood Allah marka la eegno waxa la leeyahay filimkan waxa uu noqon doonaa filim uu awoodiisa ku soo celiyay Sunil Shetty maalmahan waa ay ka jiiftay filimkan waxa qayb kale ah ninka lagu magacaabo Suraj Banjoli sidoo kale Vivek Oberoi oo doorka kaabalaadnimada filimkaas ku jili doona filimkan Kesari Veer waxa la daawan doonaa 14 March sanadaan 2025 saaxiibayaal sheekooyin kale haddii aan eegno wiilka uu dhalay Saif Ali Khan ninka lagu magacaabo Ibrahim Ali Khan iyo gabadha lagu magacaabo Khushi Kapoor ay dhashay gabadhii geeriyootay Sardefini filimkooda naadaniyan hees kale ayaa maanta laga soo bandhigay ama heestii labaad marka la eego filimkan waa filim jacayl ah dhan kale koonfur Hindiya markaan eegnay wararka ugu dambeeyay jilaaga caanka ah Mahesh Babu iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Priyanka Chopra filimkooda SSMB 29 waxa la leeyahay dib ayaa loo bilaabay duwistiisa gabadha lagu magacaabo Priyanka Chopra maalmahan walaalkeed ay guursanayay ama wiil lagu magacaabo Siddharth Chopra arooskeeda darteed ayaa filimkan xoogaa dib loo dhigay muddo isbuuca marka la eego saaxiibayaal laakiin sida hadda shaac laga qaado waxa la leeyahay filimkan dib ayaa loo bilaabay shaqadiisa dhanka kale markaan eegno maanta oo kale aflaamta soo bax kuwada ugu caansanay waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Nishana waxa hogaamiyalkooda ah Mithun Chakraborty sidoo kale gabadha caanka ah lagu magacaabo Rekha Dheere filimkan waxa uu soo baxay maanta oo kale 17 February sanadii 1995 natiijada waxa uu noqday filim flop ah aflaamta kale maanta oo kale soo bax kuwada ugu caansan waxa lagu xusi karaa filimka lagu magacaabo Fight Club filimkan marka la eego waxa uu soo baxay maanta oo kale 17 February sanadii 2006 waxa hogaamiyalkooda ah Sunil Shetty Sohail Khan Sayid Khan jilaaga lagu magacaabo Ratish iyo sidoo kale Denu Mario filimkan markii la eegay natiijada waxa uu noqday filim flop ah dhanka kale isbuucan waxa sanad guuleed dhalishiis u dabaaldegay mid kamid ah rugcadayaasha Bollywoodka ugu caansanaa ee 9-meeyadii doorka xumaanta ama kaabalaadnimada ku jiri jiray waa ninka lagu magacaabo Munish Baal Soomaalidu qaar Santag ay u yaqaanaan jilaagan isbuucan ama jumcadii la soo dhaafay ay u dabaaldegay sanad guulada dhalashadiisa 62 marka la eego jilaagan aflaam waaweyn ayuu ka soo muuqday jilaagan waxa uu dhanka aflaamta kaga soo muuqan jiray doorka kaabalaadnimada way jireen aflaam oo dhanka positive oo kale kaga soo muuqday waxa laga xusi karaa filimkii caanka ah Hamsati oo soo baxay sanadii 1999 Salman Khan iyo Saif Ali Khan ayuu qayb ka lahaa
haddaba intaas ayaan kusoo gabagabaya saaxiibayaal muuqaalkayga fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka laag inoo saar sii sheer garee oo la wadaaga asxaabtaada waan ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena